الله الرحمن الرحيم كلنتي wanaagsan daawadayaal iyo dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qalin iyo qoraal oo toddobaadkan idin kaga imaanaya xarunta Akadeemiyada Cilmiga Fanka iyo Suugaanta Soomaaliyeed waxaana barnaamijka toddobaadkan martii inoogu ah gudoomiyaha xaruntani Akadeemiyada Cilmiga Fanka iyo Suugaanta Soomaaliyeed Al-Ustaad Cabduqaadir Nuur Xuseen Maax oo dhinaca kalena ah qoraa ururiya isla markaasna qoraa buugaagta noocyadooda kala duwan hadaba waxaynu eegi doonaa qoraalka farta Soomaaliga muhiimadda uu leeyahay xilligani dadka Soomaaliyeed iyo waliba sida ay muhiim u tahay in xoog loo saaro taabagelinta wacyigelinta la xiriira horumarinta qoraalka farta Soomaaliga waxaan kale oo eegi doonaa nuxurka buugaagta uu soo bandhigay qoraaga isla markaasna gudoomiyaha Akadeemiyada Fanka iyo Cilmiga gudoomiyaha Akadeemiyada Cilmiga Fanka iyo Suugaanta Soomaaliyeed Al-Ustaad Cabduqaadir Nuur Xuseen Maax كسر برنامجك أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكسر دوا هاي محمد أبو بكر آد بدوم هالسنتهاي آد بنكاجة مهل علن ليا إن حرمت أكاديمية ده أدنوغتي معده أذيقو رادين هي وشيدة أما فائدة ده وحقرستي وحقرسك تاسو أكاديمية ده ماشي يدو حق ولا هيدنا كهذاش أما سيدا يوجا هذا شو أهيد سيدا وقف يعني سيدا رجينيو wax qorista iyo wax akhriska waa ilbaxnimo dadka reer miyiga markaad eegto iyo reer magaalka markaad eegto waxa dhaqan u leh dadka reer magaalka mar haday ilbaxnimo tahay ilbaxnimadana waxa lagu yaqaanaa waa xaraga noolaasho inuu qofku si xaraga leh u nooliyo yani waxyaabo badan oo dadka qaar reer miyiga ama dadka qaar ee beeraleyda ama dadka qaar aan waxba akhrin ama wax qorin si ay u dhaqmaan ayaanu u dhaqmaynin qofka wax akhriya ee wax qora adduunyadu waxay isku hormartay waa cilmina sida lagu helo waa in wax la akhriyo qofka si uu wax u akhriyo waa in wax qoran uu helo annaga markaan eegno Soomaaliya markaad eegto ama dadkeena Soomaaliyeed markaad eegto waxaana la ku xantaa waa dadkii hadalka iyo dhageysiga qofku wuxuu ku oranayaa maxaa la yiri ama la sheegay laakiin kuma oranayo maxaad soo akhrisay ama buugga hebel ma akhrisay yani waxa la yaab leh buug gacanta aad ku sida ama wargeys qofka kuma oranayo Soomaaliga markuu kugu arko idib aan soo akhriyay laakiin wuxuu ku oranayaa ما سو أخرسي محوش هيجيا أيوة قررنا يعني هو دخن عجائب له أيان لنا حكت أنا بوجا أما ورجيس كا أن سو أخري أن كسي النكاح أف أن كسيه أيا يسوي كفلا لكن حقيقة كم فيلا وحكفي عنا الله إنه أخريه وحكونا يكسبه هلي لها إد ماله ومدينه وحيكو إد لهين لبا وحبا إد كماله labada waxay aad ku leeyeen waxa weeyaan horta farteenu waa mardhow waxa weeyaan weli qaangaarkeedii uu dhow aad uma foga 1972 baa la qoray oo wax qoran oo buug ama warqad ku qoran oo Soomaali leedahay la arkay taa horta umadeenu aad malo hadii 100 sano qarni haday jiri lahayd fartu akhriskeenu uu badan lahaay qoraalkeenu taa aad kuma leh aad labaad ay ku lahayn waxa weeyaan umadeenu boqolkiiba 70 reer guuraabayd xoolo dhaqato ayay ahayd dadka fadhiyana way akhrisku fadhibu u baahan qoraalku fadhibu u baahan iyo nagaasho dadka fadhiya ee salmuga u fadhiyana waa beeraley iyo magaalo iyaguna waa laga tira badan iyagoo fartii ay dhawaan la qoray markii ummadda inta la isugu daro garawshay leedahay in wax qoridda iyo akhrisku ay ku yar yihiin marka waxa weeyaan gudiga af Soomaaliga markii uu afka qoray 72kii wuxuu yiri afka iyo buugaagtaba weel baan rabnaa inaan u sameeyno weelkaas oo ama geed laamihiisa meel shay doonaan ka baxan laakiin asalkiisu halka uu yahay ama weel lagu ururiyo halka laga eego wixii saxda ay meesha laga qaato waa Akadeemiyada Cilmiga Fanka iyo Suugaanta waa taa maanta aad dhex joogto marka waxa weeyaan umadeenu waa oral society ama dadkii hadalka cilada waxaan rabnaa inaan ka guuro hadaan ka guuri weyna adduunyada lama socon karno Abdi Maxamed heesuu qaado
uu sameeyey allah u naxariistay waxay ahayd haddii dayaxii la tegey haddii dadka sare u maray horay u maray maan dadaallo un ku dayan gobollada waaberi waxay ka daba lahaayeen haddii dadka hore u maray haddii dayaxii la tegey haddii dadka hore u maray maa dadaashid ood ku dayatay isagaa markaa wuxuu lahaa haddaan dadaali on ku dayan lahaa way dadkii baan ila kasayn war haddaan dadkaa hore u maray dayaxa tegey inaan gaadhna aan rabno qoraal iyo akhris baa lagu tagaa meel in layska fadhiyey maxaa la yidhi laguma tago marka ummaddeennan wixii hore u socon maayaan wixii hore ahaa maxaa la yidhi maxaa la sheegay ii warran hebelow ku socon maysa adduunyada waata ustaad marka maxaa xal ah sidee arrintaa looga gudbi karaa maxaa dadkii oo aqoon-yahanada ama qorayaashii waa idinka maxaad ku tala jirtaan annagu waxaan ku tala jirnaa akadeemiyada markay tahay burburkii 30 sano ku dhowaad ee dalka ku dhacayba akadeemiyadana ku dhacay innagoo hanaqa la soo kacnay oo qoraal xaggii iyo xag akhris iyo xag wax diyaarin buugba hanqalka la soo kacnay ayuu burburkii dhabarjabka aanu dhacay akadeemiyada haday dib u soo noolaanaysaa waxaan rabnaa ummadda inaynu ku wacyi gelino in wax la akhriyo wax la qoro hadda inta aan nimada akadeemiyada dib ay u soo hana qaatay ama dib loo soo noolaynayo hawsheedii ilaa 50 buug waynu tafaftirnay oo dhalinyaro da'yar ay qoreen markuu yiri aan qoraalka ma aqaano afkaygu wuxuu yahay waxaan ku qoray buugu yiri markuu nagu yiraahdo telefoon imaw annaga ku toosinayna nira wuu yimaada isagoo faraxsan buu tagaa oo buugi loo saxay lala taliyay marka waxaan rabnaa war laba waxba in lagu bedelo laba wax abuu karo anoo u soo noqon doono qoraalka iyo faa'iidadiisa war hadalkan badan aamus in lagu bedelo dadkan wada hadalka in la aamuso way markuu qofku aamuso waxna uu akhriyaa una fakari karaa ushan iyo budkan aynu wadanana inaan buug ku bedelo waxaan gacan qabsi buug waa in laga dhigay qofku waa inaanu socon isoo gacan qabsi wadan ama buug ama wargeys qorina ma aha ulla ma aha dhagaxna ma aha mindina ma aha tooreyna ma aha war waxa aynu meel iska dhigno aynu qaadano buug ama wargeys wax la akhriyo bas hadaad saaran tahay hadaad gidaar shaah ku yara cabayso hadaad iska xaragoonaysid magaalada marayso war waxaad ku xaragooto waxa ugu fiican buug iyo wargeys wax la akhriyo ayaa ugu wanaagsan horta dhaqan inuu taa ka dhigano Soomaaliya hadeen oral society dadkii hadalka ahayn inoo socon mayso adduunyada waa adigoo yiri bad baan gelayaa meel bad baan degayaa oo xeeb baan degayaa ama webi baan degayaa kalluumaysina ma aqaan dabaalna ma aqaan ka yeelimayso ka socon mayso adduunyada maanta waa adduun akhris waa adduun cilmi baaris waa adduun xadaarad iyo ilbaxnimo waa tahay misleedahay dalka maanta wuxuu u baahan yahay ololihii berigii 27kii la qaaday oo horumarinta maaragtay akhriska iyo qoraalka oo ilaa reer miyiga la gaarsiiyo kale xilligan uu u baahan yahay misleedahay u baahan yahay berigii hore af Soomaaliga markii la qoray waa la hirgeliyay fiirada qoraalka hirgelinta waa kala laba markii la qoray qoraalka lagu madeeyay waa la hirgeliyay hirgelintiina sababtii waxyaabaha u suurtageliyay waxay in ololayaashii la qaado kii xafiisyada dawladda qoraalka lagu baray kii ololaha horumarinta reer miyiga kii dadka waaweyn wixii oo dhan baa la sameeyay maanta baahidii mid ka daran baa jirta af Soomaaliga baa sii socda isagii baa wuu dheehmay oo luqado kale iyo waxyaabo kale ku dheehmay oo waxyaabahan social media waxa la yiraahdo ayaa aad u dheehay marka waxa loo baahan yahay ololayaal in la qaado af Soomaaliga mid lagu soo nooleeyay in la qaado mid akhriska muhiimadda uu leeyahay iyo wax qoridda in la qaado in tartama loo qabto dadka wax lagu qoro in tartama loo qabto dadka wax lagu ay akhriyaan oo buug la yiraahdo soo akhriya oo loo dhiibo la yiraahdo soo akhriyana waa mid qofkii lagu diyaar gareynayo waxa kale iyadana muhiimad kale ah in la yiraahdo hadda baad akhriyaysaa ma idinkoo fadhiya buug intii loo qaybay akhriya yani akhriska sidoo qofku uu sidoo wanaagsan wax ugu akhrin karo qofka wuxuu yiri maxaad wax u akhrin weydaan waa nin idil oday buu ahaa aad u weyn eriban aad uga faa'iideystay maxaad wax u akhrin weyday markaan ku yiri wuxuu yiri si wacan oo wanaagsan wax looma qoro qoraalka wanaagsan wuxuu keenaa akhris wanaagsan waa xigmad waa run buuga marka la taftiro hakadkiisa joogsigiisa calaamad su'aalkiisa baaragraafka ama radidiisa la kala qaado xarafka weyn laga bilaabo joogsiga dabadii si wanaagsan markii loo qoro buuga akhriska qofkana wuxuu si gelinaa si wanaagsan buu wax akhrin karaa way wada socdaan
in si wanaagsan wax loo qoraa waxay keenaysaa in si wanaagsan wax loo akhriyo. waa tahay haday waxa soo hadal qaaday social media ama baraha internetka ama baraha bulshada waa meesha ugu badan hadda qoraalada la isku dhaafsaday iyo wax akhriska waxaan aragnaa waxaad ka hadlayso wax lid ku ah inay meesha ka socoto tusaalahan qoraaladii oo dhan waa la soo gaagaabiyay si oo ayaga isula fahmayaan dadku ay hadda wax u qortaa dhalinyarada dadka la rabo inay maanta wax qoraan ama wax akhriska shuruudihiisa saxan waa dhalintii arintaas xal ma loo heli karaa si maaragtay baraha bulshada dhalinta wacyigelin loogu sameyn lahaa qoraalka saxda ah waa sax weeye afku wuu dhashaa wuu koraa wuu dhintaa waa sida geedkii dadka oo kale af xilli walbana afkiisuu leeyahay iyo xadaaradiisuu leeyahay lama odhan karo bulshada ama social mediahan aad sheegaysaa af kii hore guddigii af Soomaaliga ay qorayeen ku hadleen midaan ahayn ma samayn kartaan waqtigeedii bay marayaan laakiin waxa loo baahay markaan wax qorayno wax fiican inaan qorno oo sax ah hadda saaxiib oo kale markay qorayaan saa iyo xa iyo baa bay qorayaan laakiin buug lagu qori karo taas oo kale laakiin afka aan u dayno ha ku hadlaan ha ku qoraan social media ha ku kaftamaan laakiin markay dhabta buug lagu qorayo ama wax lagu qorayo ama idaacad looga hadlayo afka saxda in lagu hadlaa laakiin ninkii dhalinyarada oo ku hana qaaday qoraalkaas kan soo ma gabayo marka saxda ah uu gabayaa laakiin annaga maxayna loo ka baahan yahay ma taqaanaa yani waxa weeyaan markaad rabto qofka inaad toosiso waa inaad la gashaa wixiisa waa inay dadka aqoon-yahanada social media galaan oo ay toosiyaan iyagu fariimo qoraan oo u jawaabaan markuu ii soo qoro saaxiib saaxaba markuu ii qoro iyadoo sax waa inaan qoraa markuu ii yiraahdo yani waxaan haboon ama saameyn markuu ii soo qoro saameyn markuu ii soo qoro oo laba maadi laba ee uu ka daba eedii uu ka daba mariyo waa inaan saameyn u qoraa oo way yaa anoon waan iska dhigayn inaan isaga wax barayo ama aan jawaabeyga waa inay wax markaas oo asaga isbarbar dhigtaa wuxuu soo qoray waxa loo soo qoray marka waa in dadka aqoonta leh social media ay galaan oo ay Facebook samaystaan oo ay kala samaystaan oo wixii samaystaan oo wixii cashi ay qoraalkooda iyaga hagaajiyaan marka qofkii wuu il qaadaya markuu il qaadana wixii uu saxaya marka aniga waxaan rabaa akademiyadu hawshaasay yay rabtaa maxamed inay qabato hawshaasay u diyaarsanta waanad arki doontaan bariyahan soo dhow waxaan soo wadnaa mashruuc la yiraahdo midaynta qoraalka af Soomaaliga oo arki doontaan ilaa 500 oo eray in la baro bulshada oo la yiraahdo sida aynu wada qorno meel kastoo aan joogno erayga marka taa way soo akademiyada hawsha wayna ku hawlanta waxaan filaynaa inaan kamar dhalin doono waa tahay dalka wuxuu lahaa jiray wargeyso fara badan oo soo baxa oo la akhrisan jiray oo suuqyada lagu arki jiray hadda meeshii ma joogo marka ugu dhow aan soo qaadanay sagaashameeyadii ay ahayd oo dalka wargeyso inkastoo muuqaal wargeys buuxa aysan lahayn haddana wax uun bay akhriska ka tari jireen hadda maxaa la dhihi karaa wargeysadii heerkay joogaan niyo horta anigu xamarna waan arkay meel hargeysa la yiraahdana waan arkay xoogay baan yaan joogaa hargeysa ku noolaa anigu niyo mararka qaarkood idaacadaha badan waxaan ka doorbidaa wargeysyada badan maxay la wargeysyada badan hadda hargeyso kale marka tagto waxa laga yaabaa dhowr iyo 20 wargeyso waaweyn inay ka soo baxaan xamar meesha ay 30 idaacadood ka leedahay marka akhriska iyo qoraalka la yiraahdo waxa dhiiri gelin og wargeysyada badan ayaa dhiiri gelin og hadda waad aragtay wargeys wadanka xamar kama soo baxo xamar wargeys male يعني ولا بير واحد أركيسا حقدان إيو حقوقال إيو دور ورجيسو كلا ير أيها كسب بحق قارش عائلي أريما قويس كأيهين أيها كسب بحق ها أنا ورجيس بنصوص صارنا لبالك علمي جي دقن كليرا أو بالله وسجن وحياة دقن كي اللغات كشقية لكن بالشدة وحلو بهاي ورجيسية بدن بيو بهانت أو معلمة كلا دوان صباح وقلنا الضمن وح الصبح صباح مقار قلبت صباح على الربع وقفكوا قلبتي وحلو أيها لو بهاي marka wargeyskaas aad baan u doorbidi lahaa anigu in wargeysyo badan ay soo baxaan aad baan u doorbidi lahaa marka waxa weeyaan waayo wargeyskii akhrisku isku xiray hadalka iyo idaacadana way isku xiray marka taa waa sidaa waxaan leeyahay way tahay waxyaabaha way waxa weeyaan wuxuu horumaraa baarishi ku buubi lahaa markuu helo buugag fiican oo si fiican loo qoray markuu helo qoraayaal fiican markuu helo tababarayaal af Soomaaliga si fiican u yaqaan markuu helo wargeysyo badan oo soo baxay markuu helo يعني وحيابها صوب بدن مركو هلو قف فرصة أخرس بالسي لايبريريو وحكو أخريو مكتبه مركو هلو تي قرن كو كلا صور نوليو مدي علم بارس تي أكاديمية دو كلا صور نوليو بواق بدن لبيو
waxyaabahaas u sahlay akhriska yani marka dambe way ku qasbaysaatay qof baa soo kaxaynaya qof isaga inuu wax akhristo rabaa isaga ma akhrin jirin dabeecad ma lahayn uma lahayn dhaqan uma lahayn hobby ama caado uma lahayn inuu wax akhriyo saaxiibkii oo akhrinaya markuu akhrisna buug ku qasbay inuu soo qaato marka fursadaha marka la siiyo yani qofkii waxbuu akhrinayaa dabeecadda kugu qasbaysa ha waaya Ustaad Maax haddaan u soo laabano marka qormooyinkaagii dhanka qoraanimadaada buugaagta aad soo bandhigtay ilaa hadda iyo kuwa maaragtay aad ku tala jirto bal sharaxaad naga sii waxyaabaha oo qoraalada ku saabsan dhinaca leo horta buugga qoraalkiisa anigu xidigta Oktoobar baan ku qori jiray qoraalka horta halkaasaan kaga soo ababay wax qoriduna waa hibo iyo fursad hibada qofku inuu horta wixii jecel yahay waa muhiim markaad wax qorayso midda kalena dad wax qora oo fiican inaad soo gaadhayna waa muhiim ani buugaag badan baan qoray xilligaa waan soo gaaray buugaag badan baan qoray buugga diiwaanka xidigaha maansada ka mid ah buugga sheeka bareley baa ka mid ah buugga 1001 xigmadood baa ka mid ah buugga sheekooyin dooran baa ka mid ah buugga khiyaamooyinka dawacada ka mid ah buugga diiwaanka sheekooyinka qarniga ka mid ah buugga ababiya ka mid ah buugaag badan baa jiro aan qoray buugga ogeysiis jacayl buug la yiraahdaa ka mid ah buugaagta aan qoray yani waxaan isleeyahay qofku markuu akhriyo waxyaabo badan oo dhaqan iyo aqoon buu ka helayaa waa midaas meesha u socday waxaad aad focus u saartay ama diiradda u saartay dhaqanka iyo suugaanta maxaa si gaar ah dhinacaas ugu leh niyo waxaa si gaar ah waxaan isleeyahay horta laba waxyaabood weey Soomaalida dhaqan ahaan wixii library-ga aan heli karnay bay ahaa oo dadka Soomaalida nool anaga library-geena waa qofka nool ee wax yaqaan library-ga la heli karay qof su'aal laga weydiin karay ama maahmaah macnaheeda laga weydiin karay ama gabay laga weydiin karay buu ahaa oo la heli karay wuxuu ahaayoo kale wixii dadka Soomaalida ay kuugu soo joogsanayeen dhaqan ahaan oo markaad sheegto haddaad maahmaahdo way kuugu soo joogsanayeen dadka Soomaalida laakiin haddaad wax kale ka sheekayso adduunyada kale qiimo leh waxa laga yaabaa qofku inaanu aad kaaga qaadan horta taa waxyaabaha aan isla waxaan kale oo islaha waa wixii lumayay ee aan lahaa in la reebo la kaydiyo aan islaha iyadana way ahayd marka waxyaabahaas oo dhan baa suuro gelinay in waxyaabaha badan aan qoro marka hadda buugga la yiraahdo sheekooyinka diiwaanka qarniga 1400 oo sheeka ku qoran hordhaciisa hadaad akhriso yani intaasoo sanaad akhriyaysaa buugga markaad maalinba sheeka ka akhriso wuxuu isugu jiraa waxyaabo la yiraahdo qofka dhisaya psychology qofka dhisaya yani 1400 oo xigmadood baa ku qoran oo qofka dhisaysa waxa kale oo ku jira wuxuu u badan sheekooyin qosol hal mid nooga soo qabo yani hadda مثلا oo kale nin baa tusaale markaan soo qaato oo kale sheekooyinka ku jira oo kale aad buu u badan yahay oo kale nin baa dhaqan ka dhigtay tuuganimada waxbuu xadi jiray mar walba waa la xiray markii dambe markii la xiray markii uu xiraaba la soo daayay maalintii dambe markii la soo daayay baa isagoo wadada maraya gaari xoog u socdaa jugsiye wuu dhacay Soomaha ninkii markuu dhacay ninkii uu ka naxay wuu istaagay gaariga markuu istaagay uu soo qabtay dhabtu soo saaray say wax ku gaareen buu wuxuu arkay boorsadii ninka lacagta uu ku ridanayo dayacan uu kala baxay boorsadii ninka uu naxsan yahay ma oga boorsa iyo wax wuxuu arkay marka booliiska otadii oo soo qaylinay shil baa meesha ka dhacay intii la yiri ninkii degdeg buu ninkii intuu dhulka ayr u dhigo gaariga sax ka haystay uu cararay booliiska baa ninkii soo gaariyo say wax ku gaareen markaasuu yiri wallahi hadda waa iska ran laakiin jug weyn baa igu dhacday taargadii ma qabato yiri gaariga si aan u raadino may boorsadiisaan qabtay buu yiri marka yani waa qosol saas oo kale waxa kale oo ka mid ah sheekooyin ku jira nin boqor baa yiri buug baan qoraya anigu magaalada xukumo wuxuu dadka waxbay qoraan anna waa inaan wax qoraa buugii buu dhammaystiray ninka ugu fiican buu yiri wax tafaftira magaalada iyo keena wadanka aan xukumo aniga way raadiyeen waxay dhaheen kaas xabsigu kuugu jiraa buu xiran yahay ka soo daayir xabsiga waa looga soo daayay wuxuu yiri waad xiranta adiga dambi baa lagu haystaa arrimo qoys iyo waxyaabo dhaqaale waxba lagu haystaa buugan soo akhri buu yiri waan ku daynayaa si fiican u soo tafaftir imsa cishaad qaadanaysaa ma badnu yiri buuga xajmigiisa 7 halaysiyo 7 baa la siiyay meel buu la tagay soo akhri maalin 7 ay dhamaataa loo keenay boqorkii oo meel fadhiyo waran buu yiri
wuxuu yidhi xabsiga ha liigu celiyo maxaa jiruu yidhi xabsiga lagu celinayaa buug ugu xumaa taariikhdaad qortu yidhi adiga waa lagu celiyaa xabsigaa lagu celiya wax bulsho loo bandhigi kara ma yidhi moogaan wata ustaad maax aniga waxaan si gaar ah buugaagtaas sheegtay uga dooranayaa laba buug mid hadda gacanta ayaan ku hayaa waxaa la yidhaahdaa ababiye dabcan buuggan waxa uu xambaarsan yahay 600 oo maamahood oo la sharaxay kuna saabsan barbaarinta carruurta sida boorkiis ku qoran bal sharaxaad inaga sii buuggan maadaama si gaar ah aad ubadka ugu talagashay gaar ahaan ardayda dugsiyada hoose iyo dhexe anigoo maraya Hargeysa dhexdeeda suuqa ayay niman yiraahdeen ninka maax la yiraahdo ma ninkana markaas aan iri haaya maxaa laga rabay waxay dhaniyo buug badan oo dhaqan baad qortay waxaan ka doonaynaa inaad qorto buug dhaqana maamaadi dhaqankina aan ka baxsanayn haddana diiniyada oo akhlaaqda kabaya inaad qorto oo yaani dhaqankii wixii akhlaaqdii dhismihii carruurta ah inaad dhaqan ka soo saarto ood waliba sharaxdo ood maamaha kaliya uga tagin marka buugaasaan qoray ababiye la yiraahdo ayaan sameeyay dhammaantii 40 cutub way buug 40 cutub markaad fiirsato dhammaantii waa barbaarinaya akhlaaq waalidkii baa kamid ah barbaarintiisii runta sheegidiisii baa kamid ah amaanadii baa kamid ah abaalkii baa kamid ah ducada waalidka sida loo kasbada kamid ah saaxiibtinimada kamid ah sida loo xusho saaxiibka fiican yaani waa 40 cutub oo wada akhlaaqiyad oo haddana maahmaad oo wada maahmaadi dhaqanka laga soo xulay oo la sharxay haddana marka buug sidaas uu horta ku yimid waana buug fiican dad badan baa marka ka faa'iideystay iskuuladii marka saas loogu talagalay waa gartay marka imisa koobiya ka sameysay buugan waxa laga daabacay 1,000 koobi ayaa laga saabaxay ma moodid nuxurka uu xambaarsan yahay iyo koobiyada laga daabacay inay aad u yar tahay koobiyada yartaa marka la fiiriyo taa waa su'aal fiican waxaad igu diraysaa dadweynaha igu diraysaa abu maxamed abu karo yaani waxa weeyaan cilada badan baa dadka wax qora haysta cilada badan ee dadka wax qora haysta waxa weeyaan horta waa koow ninka qoraaga ah lama dhiirigelinayo buugu qoray lama daabacayo hadduu daabaco buugii uu qoray uu daabacana lagama iibsanayo marka ciladaha badan ee dadka ninka qoraaga wax qora haysta waa taa marka mar hadday sidaa tahay wax badan baa lagama daabaci hadda haddaan ku yiraahdo 1,000 koobi laga daabacay waan hayaa intoodii badneed 100 iyo dhowr 200 lagama iibsan ka badan marka waa sida arinta marka dadka waxa leedahay inay ku baraarugaan iibsashada buuggan oo kale oo nuxurka leh iyo buugta la mid ah adiga laftirka mawduuc hadda akhriska qorida aad lahayd qofka marka buugta laga iibsado qoraalka badanaya akhrisku soo badanaya marka waxaan ka rabaa buuggan markii gudaha aan u sii galno waxaa ugu talagashay iskuulada laftigooda in laga dhigo oo maaragtay dirsi ahaan loo qaato mise uun akhriskaas oo magaalooyinka lagu akhrisanayo maya wallaahi aniga marka hore waxaan ugu talagalay in iskuulada lagu daro oo ardayda manhaj ahaan loo qaato oo yaani wax supplementary reader la dhahaa jiro maadada Soomaaliga suugaanta way jirtaa yaani akhris dadban oo ardaygu uu ka faa'iideysanayo wax la yiraahdaa jiro sidaas oo kale inuu isticmaalo macalinka maadada suugaanta Soomaaliga xiisadaha qaar intuu la galo uu siiyo yaasaan ugu talagalay iyo library-yadana in lagu akhristo laakiin hadda midna ma noqon intiyo waxa weyn dadkeena bulshadeena waxa weeyaan waynu sii jeednaa wali mayna soo jeesan oo dhaqan akhris iyo dhaqan qoraal wali umayna soo jeesan hadda dhibaatooyin ka culus ba ina haysta waxaan haysta shaqo la'aan waxaan haysta dhaqaale xumo waxaan haysta abaaro waxaan haysta cudurro waxaan haysta nabadgelyo xumo laakiin ustaad maax adiga iyo hadda waxa tahay gudoomiyihii guddiga maaragtay xaruntan akademiyada cilmiga fanka wasaaradaha ay quseeyaan waa kala fariisan kartaa dabcan sida hirgelinta arintani wali ma dhaqaaqday arintaas wallahi wali uma dhaqaaqin hadda waxaan isleeyahay horta akademiyada sida gudoomiye u noqday buug qoraal waan iska daayay wax aan buug inaan gaar u qoro meel baan iska dhigay waxaan rabaa wixii la soo saaray wax guddi uu soo saaro dad ay soo saaraan wada jira inaan dhexda kaga jiro waayo waxa la yiraahdaa mar walba maad jaamacad Soomaaliga iyo dhaqanka ka dhigtid maad ka dhigtid iskuul dugsi sare waxaan ogaaday inaan ku wanaagsanahay inaan akademiyada joogo halkan akademiyada wax fiican aan ka soo saarno oo bulshada loo bandhigo waayo markaad hal iskuul ama hal jaamacad aan wax ka dhigo waa hal laakiin marka akademiga joogo bulshada dhan baad u simanta marka taaway marka tan waan samayn doonaa insha Allah inaan bandhig sameeyno waxyaabahaas oo kale aan sameeyno laakiin haddana wuu gaaray dad badan wuu gaaray waa gartay
waxaan rabaa oo kale buug kale aan rabo inaan wax ka weydiiyo waa buugga kaliya arrin jecel uga hadasho muxuu asaga ka sheekeynayaa niyo buugga ogeysiis jacayl baa lahaa ogeysiis jacayl baa lahaa buugga dhinaciisa kale haddaad eegto waxaan isleeyahay buuggan waa haltabino quotes waxa af ingiriiska lagu yidhaah ma aha heblo iyo hebel baa beri jacayl dhex maray ma aha adduunka jacaylka muxuu ka qabaa horta ra'yi weyn anoo dugsiga sare imaam shaafici xiisad ku jira ayaa waxay yiraahdeen macallin oo maadada suugaanta Soomaaliga dhigaya ayaa waxay arday dugsiga sare form 4 ka yiraahdeen macallin buug badan baad qortay laakiin weliga buug jacayl ma qortay markaas aan iri may maxaad u qori weyday bay dhaheen buug jacayl yani waxyaabahan bulshada ay ku fiican tahay way waan la akhrisan la adigu magacaaga waa la akhristaa buugaas markaasaan bilaabay inaan qoro arsaba markii ugu horeysay lagu taabacay adaa ku watay soo lama dhigi karo xuraansiga bulshada mar walba waxba kaaga soo dhaxbax ilaan ababiyo wuxuu ka soo baxay ra'yi dadweyne meelaha buugta lagu iibiyo intaan tagno ayaan maxaa uu karo waxaan dhihi jirnay maxaa lidin weydiiyaa oo maqan buugan waan qornay kan waan qor waxay yiraahdeen dadka war buug haweenka ku saabsan may soo qoraan kii baan qori jirnay markaas marka ogeysiis jacayl buuga marka waa 136 page baan u malaynayaa waana waxaan u malaynayaa haddaanan khaldanayn 32 cutub xitaa jacaylka dawadiisa way ku qoran tahay jacaylka dawadiisa way ku qoran tahay maxaa leedahay dawadiisa maxay tahay markaad in marka midalan oo kale qofkii markaad weydo aad jeclayd inaad guursato ay waxyaabaha jacaylka dawadiisa ay ka mid tahay haddaa weysidna maxaa ku dhacaya haddaad weyso soo maahan يعني هداد ويدا وحاويان إنا دبعتي سي كرديس تبى سوق لكن إنا أبو حخرسو أخرس كان أتشيء سا كمدا بواك عائل بدن إنا أخرسو يوحيا بالود دويد وحباك الله بحثه حباك الله بحثه النفط هذا يعني بوان دويد وح كلام هو النفط ولا ما ويلني إنك صيد الله يلتي أبط واقعيا لما شدوا هجي وقتي سكة لو سوق جاي بفسطها يا قلبي ما أنا جاي لودي كريدة من اللي يرى محمد نور فضل جعلك وقدرن أدوم وكا wuxuu yiri in kastay dhalaan yeelato iyo ubad dhawaaqaya dhimashada ha joogtay si kale uu dhursugayahay dhufsatay qalbiga maaniga dhudi ka reebayo xitaa haday guursato waa jeclahay kuye ilma haday dhasho waa jeclahay buu yani buu ajaa'ibta jacayl soo ma aragti inay dhimato uma kaga samri karaa buu yiri adduunka intay ku nooshahay waan jeclahay waata ustaad waxaan ka rabaa marka dhaqanka aan ku laabto iyo aad uga hadashay dadka aad waxa u soo bandhigaysaa waa dad magaalo inta badan ku nool dhaqankan inta laga haysto fikirka laga haysto aad ay u yartaa maxaa kaaga soo baxay dadkii ilaa dib aad uga noqotaa waxaad soo qortay waxa laga fahmay oo ilaahda waliba markaad soo akhriseen maxaa aragteen ka warrama ilaahda horta gabaygu adag yahay waan u tagnay sheekooyinkan dhaqanka hadda miyiga laga sheekaynayana xilligan lama socon karaana waan aragnay marka annaga laakiin af Soomaaliga miyiga magaalada inuu kala duwan waan aragnay af Soomaaliga ku eedagiyo qaar ku weydiinayay ay ku weydiinayaan laakiin ujeedadeena annaga waxa weeyaan dadka hadda wax qora ujeedada ugu weyn waxa weeyaan qofkari wixii jiri jiray afka waa inuu kayd leeyahay afka kayd waxaan kayd la'aan ma socdaan qofka xitaa ma noolaan karo hadduu kayd lahayn afku waa inuu madax leeyahay madax kayda waa inuu leeyahay marka madaxa kaydka uga dan leenahay mooy erayada waan ognahay way sii fudan hadda fiiri kitaabka waxaan maqli jiray iyagoo gabdhaheena ku haysta jalaaleenka akhriyo jameecada aabahood yani ninka cilmiga marka sheekha la faaninayo kitaabka jalaaleenka la yiraahdo ninka akhriyaa ugu sareeyay diinta jalaaleenka cidina ma akhriso hadeer kutub yar yar oo jeebabka lagu qaatay iyo buugta laga soo saaray ayaa laga soo saaray جلاليك وينا أنت بوك الرحلة قال نحدق وسال له رجوع شيخ أنت ساجر هذا والرجل جرو وديجري ما جرت هذا عندنا وما فريسته علمي وحو قال بوك كتاب ير كتب ير يبقى رسالون يريرو جهاب كلا كشط أيوه قال هذا نسيدي وكلا جبي مؤذيها ولا فضضينا يا أما جبي فضض بابا ترى ومقالة قصاب سبالة ترى شيء كذا مي أتكيد نقل كي شكانسي عساوي مي أتكا ها كويرو فضود بالقرية لكن كل جت ما هو مرح يكيد مكتبة يوحول البنو اللي وعد تذكر يكون ولا وإلا أوجاد واتاه جبدي أمر هدان كهل إنه هرجلينتا أما استاجا وحقرسته وحقرسته
ma moodaa maanta wax kasta la qoraayo ama xafiis dawladda ka soo baxo ama xafiis kale ka soo baxo in afqalaad uu ku dabaqay oo marka qaal aba Soomaaliga la rabin bay warqadan ay ku qoran tahay afki qalaad aad iyo aad horta midda kaliya dilaysa waxa afkeena burburkii markuu dhacay daaqadaha ku furmay daaqad markay kugu furantana wax walba way ka soo galaan marka daaqadaha inuu furmay waxa kamid ah inuu dheeho afki uu kulli faaqmo afaf shisheeye inay kulli faaqmaan waxa looga gudbi karaa inay horta meheradaha annagu aan la baxayno af Soomaali aan ku qorno ganacsigeena ha shirkadaha ganacsiga iyo bangiyadana marka la soo galo inay af Soomaali soo dhawow iyo welcome tan inay dhaafaan shirkadaha xawaaladaha gelaysa teller baad arkaysaa teller baa ku qoran war meesha ma London baa lacagti lagu soo diray ninkii aad weydiin lahayd ku sheegi lahaa way ma sheega lagu marka ninkii lacagta qaadaha ma yaqaan wax xaquu ka yaqaana marka waxyaabaha qaar kood dictionary qaamuus baad u baahanaysaa inay fahanto iska daa marka waxaan leeyahay way ka baxaysaa akademiyada qorsheeda ku jira gobolka Banaadir iyo akademiyada ay ka wada shaqeeyaan oo la yiraahdo magac bixinta iyo sixidda meheradaha ganacsiga kii hadda waan wadnaa wada hadal uu noo socdaa akademiyada inaan ka dhax furnaan rabnaa xafiiska cid walba oo ganacsato oo rabta inay meherad furato inay noo timaado ama magac Ingiriiska noo keento af Soomaali sax aan ugu turjuno ama af Soomaali jaban ay noo keento mid sax aan uga dhigno ayaan horta wadnaa xafiisyada dawladda iyada lafteeda waan wadnaayo waxaan wadnaa midaynta wataan ku sheegay erayada qoraalka habka qoraalka iyo xafiisyada dawladda lafteeda horta wataan ku sheego waxa weeyaan qofku markuu sii jeedo ilaa taabato uu soo jeestaa laakiin haddaad wax u sheegto ma soo jeedo wax sheegid wax kuma sii jeedaaba Soomaalidu way sii jeedaan marka hore in la soo jeediyo soo jeedo la taabto way marka taabashadii baan wadnaa hadda waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay al-Ustaad Cabdiqaadir Nuur Xuseen Maax oo ah gudoomiyaha akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed isla markaasna ah qoraa buugaag fara badan qoray isla markaana ku caan baxay soo bandhigida dhaqanka iyo hidaha Soomaaliyeed barnaamijyada aan uga baahanahay akademiyada iyo qoraaga laftigiisaba inta kuma filna waxaan jecelnahay barnaamijyo kale in aan ugu soo laabano du'aab idmo laakiin barnaamijkeena toddobaadkani inta ayaan ku hakinaynaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh